haddii aan nahay beesha jareerweyn haddii aan 24 saac la soo deynin ninka la leeyahay jenaraal sheegow isagoo badqab ah oon weliba raaligelin aysan ka bixinin waxaan ka bixin doonaa wax ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay la yaabto xaalad halis ayuu wajahayaa generaalkii Soomaaliyeed ee ka soo jeeday beesha jareerweyne jenaraal sheegow xabsiga ayaa lagu dhex jir dilayaa sidoo kalena cuntada ayaa sun loogu darayaa waxaana la amray in isaga oo irbad lagu dhuftay laga soo sii daayo xabsiga ama la qaarijiyo barnaamijkeena ayaan idinkula wadaagi doonaa beesha jareerweyne oo sheegteen in tallaabo argagax leh ay qaadi doonaan dagaalkana waxa ay dhaheen beesha hawiye gardarro weyn iyo dulmi ayay naga gashay waxaana ay wacad ku mareen inay adeegsan doonaan sixirro halis ah oo ka yaabin doona qaybta dambe ee muuqaalkeena waxaad ku daawan doontaan beesha jareerweyne oo sheegeen in muddo isbuuc gudaheeda beesha hawiye ay arki doonaan wax ay la yaabaan wal ciyaadu billaah ilaahu adaan kaamiga galnay haddaba dhammaantiin muuqaalkan sii shargareeyo ummadda Soomaaliyeed muuqaalkan leegtay inoogu hiliya hal door miidiina subscribe saartay gambaleelkana furta kuma hasanadeen waxaan halkan idinkula wadaagi doonaa dhacdada argagaxa iyo murugada leh ee laga soo tabinayo xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho halkaas oo la geeyay Suldaan Jeelow ama sargaalka generaalka ahaa ee sheegow waxaana la soo gudbinayaa in laga qaaday goobtaasi oo la galiyay xabarta xurun Khadiijo ee ku taala saldhigga nisa ay ku leedahay magaalada Muqdisho waana meel halis ah halkan ayaa lagu cadaabayaa generaalkii beesha jareerweyne beesha hawiyana dulmi weyn ayay gashay balse beesha jareerweyne waxa ay wacad ku mareen inay argoosan doonaan si walbaba ha u argoosteene miyay weerarayaan madaxtooyada Soomaaliya miyay burburinayaan hoteelada hawiye uu ka dhistay xamar iyo dabaqyada mise waxa ay sixri doonaan beesha hawiye dhammaan qodobadaasi oo dhan ayay ka jawaabayaan waana xaaladii ugu halista badneed abid beesha jareerweyne waxay dhaheen hawiye anagu dadka ma dhibno dad Soomaaliyeed ayaan nahay waan xamaalanaa cidna ma qarxino balse maanta idinka ayaa isku kaayay soo jeediyay haddaba u adkaysta dibirta iyo diryaanada aan idin la dabacsanahay waana xaalad halis iyo murugo leh generaalka sheega waxa la xaqiijiyay in 3 bari ka hor laga qaaday xarunta xabar Khadiijo sidoo kale halkaas la geeyay oo si xun markaas loogu bahdilay isagoo xaniyaha koronto looga dhajiyay waxaana la sheegay inuu qirto ku dhawaad 50 qof oo ka soo jeeda beesha hawiye oo uu khaarijiyay bal ilaahay ka warrama Soomaaliya gardarradaas iyo dhibaatadaas ay geysanayaan beesha jareerweyne bal beesha hawiye dhibaatada ay geysanayaan oo ay u geysanayaan beesha jareerweyne Soomaaliya ka warrama bal xanuunkaasi hagardaamadaas ka warrama bal beesha hawiye inta ummadii Soomaaliya dhulkeedii dhaceen oo wax walba boobeen oo Soomaali ay kala cayriyeen oo Soomaali ay kala burburiyeen oo ayagii aysan isku roonayn oo ayagii islaayeen oo khadad cagaaran kala xirteen maantana waxay u soo dhigteen beesha jareerweyne waa dulmi weyn oo ay ka galeen beesha hawiye beesha jareerweyne wacda beesha hawiye cuqba weyn ayaa ku soo socota sida muuqata jenaraal sheegowna xaalad halis ay xabsi ku gelinayaan waxayna jenaraal sheegow wacad ku mareen inay xaniyaha koronto kaga dhajinayaan sidoo kale ay jijibin doonaan sidoo kale markaasi ay qaarijin doonaan mahadsaad awalba waa la ogaa qof xulan qabyaaladaysta ah inuu yahay oo markaasi uu Soomaalida ummadda Soomaaliyeed uu kala dirayo mar walba oo beesha hawiye ay xilka la wareegaana Soomaaliya waxay u rigaan god dheer ayay ku ridaan sida muuqatana dulmi weyn ayay tirsanayaan beesha jareerweyne Soomaaliya beesha jareerweyne hadii ay beesha hawiye sixraan oo ay taagaan oo ay mataqaan hoteeladooda burburiyaan ma ayaga eedale mise waxa laga galay beesha jareerweyne wacda hawiye xaaladdu waa ku adag tahay beesha jareerweyne waxay leedahay goobo fara badan oo sixirka Soomaaliya lagu sameeyo waxaana kamida meesha loo yaqaan la foole waxayna ka dhigayaan dibi sidoo kalena waxa ay burburin karaan goob kasta 24 saac madaxtooyada Soomaaliya ayay sixri karaan oo Xasan Sheekh Maxamuud ay bartaas ku bireyn karaan sidoo kalena waxay sameeyaan karaan gantaalo waaweyn ay adeegsan karaan iyo asmooyin waa cuqubada ay galayaan beesha hawiye oo ummadda Soomaaliyeed ay ka galayaan beesha hawiye waxay barakiciyeen isbuuc ka hor beesha raxan weyn maantana jareerweyne ay kicinayaan waxaana u jeedaan Soomaaliya beesha hawiye inay dharkii dhigatay oo aysan maskiin iyo mataqaanaa mid xoog leh aysan cafinayn oo ay wax walba ay rabaan inay qarbudaan wax walba ay burburiyaan iyagu kama rabaan dawladnimo inay wax cunaan un bas oo wax boobaan oo wax xadaan oo wax burburiyaan bas bay ayaga dantooda tahay ayagu ma rabaan Soomaalinimo iyo midnimo waana u jeedaan raxan weyn bay shalay ku boobeen oo ay baraawo damceen ay ka xogaan raxan weyn afkii laad ka gelisay maantana beesha jareerweyne ee masaakiinta ahayd ee sicirada halista ah taqaanay bay afaarahooda galeen bal hawiye iyo jareerweyne waxa kala qabsada ayaanu ogaan doonaa Soomaaliya inaan difaacna diyaar muutiin haddaan sheegow la soo deeyna 24 saac gudaheeda inaan dagaalano diyaar muutiin keligii taliska Xasan Sheekh Maxamuud iyo hugunta asu adeegsaday generaalka haddii aan nahay beesha jareerweyne haddii aan 24 saac la soo deynin ninka la leeyahay jenaraal sheegow isagoo badqab ah
oon weliba raalligelin aysan ka bixinin waxaan ka bixin doonnaa wax ummadda soomaaliyeed oo dhan ay la yaabto. waan ku dagaalamaynaa waan ku dhimanaynaa waan ku dhaawacmaynaa waana ogolnahay inaannu ku dhimano qofka mar buu dhintaa laakiin lama ogolaan karo adeer fuli janno ma galo anaa runtu idiin sheegay fuli janno ma galo ninkii fuliyow wallaahi inaadan janno gelaynin qori ay noqoto nin walba qori gadaa wax kale ma la calaa meesha ma yaalnima shanta kaarwa sharci ka maceliyo inta soo kusoo beerahena la xoobi guriyana la boobay gabdheena la kufsaday walaalkeena la gubay keenii kala sharafkeena halka nin oo karaamada noo lahaa lagu bahdil horkeena wili aragnaa cunug xunoo shali soo baxay inuu kuleetiisa qabta ninkii soo dila 10 habiya jannada hore ka galaya xataa waxaan aaminsanahay naar arkeenin waxaan halkaan isugu imaanay shirkan jaraa'idna u qabanay inaanu cambaareyno falkii wuxuushnimada ahaa ee lagu weeraray habeen horo ilaa iyo shalay gurigii uu deganaa jenaraal sheegow waa jenaraalkii maanta beelaha jareerweyne ee maanta ugu jiray Soomaaliya ha ahaato jenaraalku wax lagu eedeyn lagu weeraray wax iska qorshaysan bay ahaayeen wax macnaha ma ahayn waxyaabaha lagu saleynayana wax annagu aan u leenahay macnaha maanta fir iyo faracna ma aha waayo maanta jareerweyne uma lahan inuu mobeelo dhaco inuu isbaarooyin dhigto laguma yaqaano haddii aan isbaarooyin dhiganayno oo mobeelo aan dhacayno ama aanu macnaha maanta xaqayna lama duudin lahaynoo dawladda federaalka maanta xaq intee la eg baan ku yeelan lahayn haddaan mar hore qoryaha qaadan waagii la qaxayay waa la wada sinnaa dadku way wada sinnaayeen cidna qori ma haysanin qoryihii waxa laga wada bilaqaystay dawladdii siyaad bare baa laga wada bilaqaystay markay meesha ka kacday nin walba qori buu qaatay haddaan rabno inaan dad dhacno haddaan rabno inaan dad dilno haddaan rabno inaan xaq islaameed boobno haddaan rabno inaan wax kufsanno markaasaynu qaadan lahayn qoryo oona dad dhici lahayn jenaraal sheegow asbaab lagu weeraro baa la waayey oo loogu gabaday wiilashii asiga ka tirsanaaba wax soo dhacay asigana waa keed buu ahaa wax jira ma ahan wax jiri doonana ma aha kow tan labaad waxay ahayd wuxuu yidhi sheegow wuxuu ahaa dhamme kabtan buu ahaa oona laga fariisiyey shaqada taasna wuu ku fashilmay asigaa kala hadlay wuxuu yidhi liiskaan soo baaray inuu jenaraal ahaa baan soo ogaaday horta nin booliisa sharciga xataa ninkaas aad uma yaqaano waa un layska dhigtoo nugu shaqaysanayaa sharciga xataa aad uma yaqaano waxaad ogaanaysaa nin booliisa inuu baxo nin militari ah feelkiisa ma baari karo shaqo iskuma laha xataa laba wasaaradood bay kala yihiin wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda amnigay kala yihiin taana jawaab baan taas uga dhigayaa mideeda kale sheegow waxaana digreetadii lagu magacaabay lambarkeeda wuxuu ahaa 386 wuxuu ahaa ma fahantay 2016 buu ahaa xilligii loo magacaabay iyadoo laifana meel walbay taallaa ma ahan mid maanta uu iska dhigayey mideeda kale waxaan leeyahay siyaasiyiinta waxaan baaq u dirayaa dhammaan siyaasiyiinta maanta beelaha jareerweyne siduu u hadlay wasiir